dhalinyaro Soomaaliyeed waxa ay naftooda qatar u geliyaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda iyo kan ehelkoodaba waa ay ka xawaare dheerayaan kana degdegsiimo badan yihiin gaadiidka kale balse mararka qaar waxa ay ku waayaan naftooda ama qaybo kamid ah lixaadkooda shaqadani ay dhalinyaradan qabtaan ma ahan mid uu darawal kasta ku dhiiran karo waana mid qatarteedu aad u badan tahay dhalinta ka shaqeysatana ay la kulmaan dhibaatooyin ka soo gaara mashquulka wadooyinka maadaama ay xawaare sare ku socdaan waana kuwa u nugul shilalka dhalintan badankood kuma qanacsana xirfadan qaadwadida balse sida ay sheegeen waxa ku kalifaysa duruufaha shaqo la'aaneed ee waqtigan haysata dhalinyarada Soomaaliyeed Umar Cabdiqaadir iyo Muudi waa laba dhalinyaro oo ku shaqeysta xirfadani mooto wadida maraan la kulmay ayaa waxa iga warameen sababta ay ku doorbideen shaqadani iyo haatan habka ay ugu maareeyaan noloshooda anaga teeda kale waxna u kalifay maxay tahay mootooyinka aan wadno dibka jiro waxay tahay anu mootooyinka u kalifay wax la'aan hayso dib bilad shaqo u laala meel laga shaqeysan lahay qof walba mooto qof wada la malaha shaqooyinka kala ka badan wadanka dhaqaalu leeyahay laakiin maanta waxa jirta dibka jiro ugu weyn wuxuu yahay shaqo malaha wadanka laakiin wadanka duu shaqo la halay cid mooto wada la malaha laakiin hadda maanta barnaamijkeena dhan wuxuu noqday dhalinyartii soo baxday oo dhan mooto wataan dhibaato badan danta ay u keenteen waxa waaye aqoon ma jirto wax iskoola la ma jirto wax laan ba iska jirto mootada waa iska shaqeystaa mootada waa iska shaqeystaa dhibaato badan waa la kulmaa xagga askarta dhibaato kale dhaco mootada iska dhacay waxyaalahaas badan la kulmaa kullu waa iska qaraata ma dhaaf karo shaqada wallahi tan ka fudud aniga waa waani hadda aan ka shaqeyn inta shaqooyin kale waa qabiil shaqo isku fiya iskoolka waa qabiil oo leeyahay wax barashada ta waa 5 way aniga mootooyinkaas aan iska shaqeysnaa xooggan ku xamaalna Rashad Aadan Zaahir Universal TV Muqdisho